السلام عليكم أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليكم السلام ولا شيء. نجم بيتي هل كذا كذا ونسألنا ونجم بيري channel ما شاء الله تبارك الله تدقوا عصبتها سودو هناك إلى من سبسكرايب كذا هوري اللي شفتنا إن شاء الله لايك وحي رأي أدخبت إيه وحي سؤال أدخبتنا حلقة كومنت سجنوا قرب إن شاء الله ولا له قالق وحنش على استي عاوة إن الله الله قبلها وجهك سليدة له أما وجهك الدفنت له ama oil skinka leh ee jirka saliida leh rag iyo dumarba waxaan jeclaystay maadaama aan khibrad u leeyahay qurxinta inaan maanta wax yar oo fikir ah aan ku darsado walaalahayga aan u sheego oo boqolkiiba boqol naga maqan haddana aan idin sharaxo Najma Beauty product maxay u soo saartay dadka wajiga nabraha leh ama dadka wajiga saliida leh maxay u soo saartay. Let's go ila socda insha Allah. Walaalahayga qaaliga ah markaad aragtid wajiga nabraha wuxuu qeybaba u kala baxaa gabdhaha siiba gabdha wuxuu ka soo baxaa mar allaala markii ay u dhow yihiin ay gali rabaan bisha fasaxa dabada bari intaysan gelin isbuuc ka hore ama markayba galaan ayuu ka soo kala baxaa nabraha ay shurac hal mar ka soo dhahaan kadibna way iska noqdaan oo madmadooy waxaas ku reebaan dadna waxa u keeno inay isticmaaleen waxyaabo fake ah ama product aanan munaasib ku ahayn wajigooda inay marsadeen kadibna uu sidaas uga soo baxay nabrihii siday u bilaabatana ilaa hadda ay saari la yihiin dadna wuxuu kaga soo baxaa allergy qof inuu wax ku noqdo allergy ama cabitaan ama cuntooyin ama kareem ama waxle inuu qofka maaragtay uu allergy ku noqday waana kuwa ugu fudud oo sida fudud lagu bixin karo dadna waxa laga yaabaa inuu nabraha kaga soo baxo hormone qofkaasi Soomaali waxay dhahaan finqooq qofkaasi ilaa uu guursadana nabarkaas inuu ka baxo way adkaanaysaa nabrahu marka way kala yihiin nabarku markuu wajiga ka soo baxayo uu aad iyo aad u xanuun badan yahay uu weyn yahay kale waa finka ay dhahaan fintoob Soomaalida nabarka markuu soo baxayo waa sida geedka camal geedka xididuu leeyahay geedka haddaad dhaxda ka jirtid aadan xididkii hoose aadan soo dhameynin muxuu sameynayaa wuu baxayaa haddana sidii ayuu u baxayaa nabraha wajiga ka soo baxana waa sidoo kale gudaha hoose ayaa waxaa jiro inay ku jiraan waxyaabahan cadcad aad arkaysiin skinka gudihiisu ku jiraa marka haddaadan gudaha ka soo dhameystirin wixii way soo babaxayaan kan hadda hormoonka kale inta badan waxaa lagu daabeeyaa qofka markuu guursado mise marxaladaasi uu ka baxo su'aala sidoo uga baxayba inta badan markay guursado ayay ka baxaan qofka allergiga ku keenay wuxuu kaga bixi karaa inuu raadiyo wuxuu markaas allergy ku noqday uuna iska daayo marka xigto qofka inuu u fiirsado wuxuu wajigiisa marinayo ama skinkiisa uu marinayo inay yihiin wax quality leh inay yihiin wax sharciyeysan inay yihiin wax la yaqaano hadda waad aragteen Soomaali haddaan nahay anakoona waxba aqoonayaan waxaan dhahnaa waxbaa naqaanaa qof waxaa arkaysaa magaciisa xitaa aan qori karin at the same time haddana rabo inuu adiga wax kaa gado dad had Soomaali badan waxaa jirto kambaniyo wax u xayeysiiyaan ayaga naftirkooda ma yaqaanaan meesha waxa ku qoran laakiin adigoo isku dayaa inay kaa gadaan dad saas oo kala jirto wajiga marka seebaad marka ugu hortay kartaa wajigaaga nabraha baqitaanka dhan iska deeyay horta marwan mid aad kula talinaa waxay tahay waswaaska iyo baqitaanka iyo niyad jabka markay aragtid inuu nabraha ka soo baxay
ama haddaad tahay dadka xilliga gabdhaha toddobaadka markay geli rabaan toddobada fasaxa nabar kusoo socdo waxaad kaga hortegaysaa oo kale waxaad raadsanaysaa the best face cream oo agniga u xil saaran nabraha u xil saaran waxaad sameynaysaa wiiga ka horeeyay wejigaaga waxaad ku sameynaysaa steam facial wash ayaad ku sameynaysaa wejiga waa steam gareynaysaa waad dhaqaysaa meel alla meesha isleedahay nabraha ku jiraan ma tuujinaysid geed waxaa jirtaa la sarsaaro wejiga geedkaasaa kusoo bixbixinaysaa wejiga steamaa ku sameynaysaa wejiga markaad steam ku subisa wuu afku kala qaadayaa wejiga wuu neefsanayaa waxaad sameynaysaa marka inaad isticmaashid the best creamkii oo naturalka ahaa ee aan chemical ku jirin ee loogu talagalay markaasi nabraha meeshaa doontidba aad ka heshid haddaad haysatidna is good haddaad tahay dadka isagana sidoo kale hormoonka leh oo nabraha waaweyn waxaa xanuunka badan kasoo baxo adigana waxaad sameynaysaa sidaasoo kale wejiga markuu nabra leeyahay waxaad ugu dadaashaa isbuuc mar inaad dhaqdid ood steam aad ku subisid aad isku daydid wejiga meelaha dulduleelka ah inaadan gacanta la gelin bahal yaroo waxaa loogu talagalay god yaroo duleesho leh bahaladaasi intaad saa usi saartid aad usoo bixisid insha allah isoo subscribe soo siiya sida loo sameeyo insha allah waa idiin soo suubin doona hadduu ilaahay awoodla ka raali noqdo wejigana waa inaad ka ilaalisid chemicalka haddaad dry skin tahay iyo haddaad oil skin tahayba skinkaada ka ilaali chemicalka heer waxaad gaari doontaa marka dambe aadan meel aad wax ka qabata aada joogin wax kasta aamirsatid xitaa waxa naturalka ay ku dhibayaan wax alla wix natural xitaa wuu ku dhibayaa markaasna skinkaada way u dhamaatay sidii hore kusoo noqdo way adag tahay marka waxa aa idin siinaa oo tala ah waxay tahay abaaye maxaa marsatay kareem hebelaa marsaday soo qabo qaanada saar abaaye maxaa hirsatay kareem hebelaa marsaday soo qabo qaanada saar abaaye nabraha qabaa saana ahay kareem isii saabuun isii waxaan isii waxba kuuma tarayaan waxaad sameynaysaa kareemka best face cream oo agniga loogu talagalay raadso markaa heshid wejiga isbuucii isku day inaad steam ku samaysid wejigana aad dhaqdid that is the best solution aad u helaysid agniga waa xalka ugu wanaagsan aad u heli kartid nabraha inay kaaga yaraadaan laakiin markaad maalin walba kareem hor la marisid waxaa kaaga imaanayo inuu wejigaadii wareero wax uu la qabsada uu garan waayo wejigana uu caburnaado nabarkina uusan weligiis alliis kaa bixin nabarka marka waa sida geed xididaystay dhulka ku xididaystay camal wax isla marka bixi karo ma aha dhaqitaan fara badan iyo hagaajis fara badan weegiiba mar steam lagu subiyo wejiga laga shaqeeyo waxyaabaha naturalka la mariyo ayaa aad iyo aad kuu caawinayo intaas waxaa waaye taladii aa idinku darsanaa anigoo ah walaashii Najma Beauty maasha allah soo subscribe soo saar next video insha allah next video idima dhihi karo laakiin sidaad adi insha allah waa idiin soo gelin doonaa video sidaad wejiga u dhaqi lahaydeen qaabkaad u sameyn lahaydeen dadka nabraha leh insha allah siiba weli haddaan helo qof nabar leh oon idinku tuso ama anigaaba isku keen tusaysa maaha maasha allah anaka hadda waxaa ugu talagalnay nabraha waa face creamkan website-ka markaa gashid waa aad ka arkaysaa iyo saabuuntiisa videogina idinku dheereey ma rabo face creamkan wakaas wasa ujeedaan waa dhirtii oo sideedii ah serantan waxaa isticmaala dadka wejiga qalalan dadka wejiga dry skinka maadaama aniga aan dry skin ahay haddana waan isticmaali karaa oilka dadka u dhexeeyaan ahay maasha allah tabaaraka allah hadda waan marsanaynaa hala yar oo waxaan soo qaatay face creamkii oo dadka loogu talagalay nabraha maasha allah waxaa ku darsaday in yar oo serum oo vitamin ah marka waa isku qasayaa wejigaa marsanayaa waxba igama dhibaysa aniga because waa u dhexeeya aniga oilka iyo dryga u kaxeeyaa hadduu nabar soo baxana si meel loo saaro waa aqaana maasha allah tabaaraka allah soo marka saas ayaa dhehaysaa adiga marka kareemka keligiis ayaa marsanaysaa laakiin ani hadda seramta ayaa ku darsaday maasha allah tabaaraka allah qamaarka iska dhigi doonaa si fiican ayaa u marsan doonaa insha allah hadduu ilaahay awood la ka raali noqdo waxaa idin leeyahay
la socda MBR Natural Beauty Product waa product organic certified organic waaye alaabteena productigeena inta badan waxaa lagu subiyaa wadanka Mareykanka maasha Allah tabaarakallah iyo wadamo ka baxsanba Mareykanka maasha Allah tabaarakallah waxaa idin leeyahay oo ku mahadsantihiin lip maskigana qofka habeenkii markuu seexana ayuu bishimaha marsanayaa maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo waa lip mask isagana maasha Allah laga sameeyay vitamin iyo strawberry de waxaa idin leeyahay good night. Assalaamu calaykum.